Barasabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire ayaa maanta abaalmarinaya koobab guddoonsiiyay kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee tartan ciyaareedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo loogu magac daray barasabka gobolka Togdheer Qabyo Tire iyo ku-xigeenkiisa Daljir oo ka socday garoonka Lixle ee magaalada Burco. Munaasabad kooban oo loo sameeyay guddoonsiinta abaalmarintan iyo koobabkaasi ayaa waxa ugu horreyntiiba ka hadlay tababarihii xulka gobolka Togdheer Xasan Xaguuga iyo suduwaha ciyaaraha ee gobolka oo faahfaahin ka bixiyay muddadii uu socday tartan ciyaareedku. maanta waxaan isugu nimi tartankii aan ku qabanay Lixle Stadium oo aan ugu magac darnay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenka waa Qabyo Tire iyo Daljire labada koob waxaan ugu talagalnay labadii kooxood heerka koowaad iyo heerka labaad maadaama awil hore loo furi jiray heerka koowaad oo qura waxaan ugu talagalnay heerka labaadna 15 shiino heerka koowaad iyo heerka labaad kala dhigno bishii Ramadaan salaanka bacdi halkan waxaynu maanta ku bixin doonaa koobabkii Ramadaan ka kala socday garoomada kala duwan ee gobolka Togdheer kuwii ka socday Lixle Stadium kuwaas oo loogu magac daray Daljire iyo Qabyo Tire oo ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka barakaatu maanta aniga waxa ay tahay farxad oo guul bay tahay waxaan arkayaa dhalinyaro sports ah oo isdhaxgal sameysay iyo maamulkoogii oo maanta meel wada fadhiya hidiilo wanaagsan ayay ii tahay ugu dambeyntiina waxa si wada jir uga dareen celiyay barasabka gobolka Togdheer Master Qabyo Tire iyo ku-xigeenkiisa Daljir salaan dabadeed waxa farxad noo ah gobolkii Togdheer oo bariye dhaweyto ama bariye dhexe ciyaartooygeedii magac lahaan jiray wax ka sii noqdeen muddadii iminka gudoomiyahan cusub inoo yimi iyo intii ka horeysayba in wax iska bedeleen aad bay farxad inoogu tahay qiimaha ballaaran ee dhalinyaradii reer Burco ay iminka isaga saareen hulumbihii cudurka ay soo yar galay ee maanta dhalinyaradii ku mudaysan tahay ayagoon xaafad ahayn aan wax kala ahayn waxaan leeyahay saawidin sheegay gudoomiye ku-xigeenku anuu baash waan ciyaari jiray aadna waan ugu fiicnaa bariga hore sportkuna jirka caafimaadka qaba maskaxda caafimaadka qabta ku jirto imanka shalay baan isweydiinay aniga gudoomiye ku-xigeenku war xageebanu exercise ku sameynaa madaxnimaduba waa urduduub weey xafiiskaas aad fadhiyaysaa gurigaad fadhiyaysaa askar baa kula socota midun baan idinka doonaynaa idinku ina qabyaaladaan waxaan taariikhta leeyahay aafade nagu habsaday inaanay maskaxdiina soo galin intaas war halkana wax walba anaga qurba ka nimi kuwaas qurba ka yimi oo kuwaas oo noqonaya qurba waxa la wax faa'iido u leeyahay ma jirto gabagabadiina waxa barasabka iyo ciyaartooyda isweydaarsadeen koobab abaalmarino iyo shahaadooyin lagu maamuusay barasabka iyo ku-xigeenkiisa Daljir Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad